سلام الله عليكم داود يلوين السلام ميل والبقى دنيا دعلة كتشوكتان إيه ساعة والبقى مركز إدين تاي هالكني وأوداكس برودكشن وذا لا بكلس عن شردين وررك قدام بيئة الصومالية جودها يدوي ده فضلا داود وحى حسوسيني هدي أي تمرك كجور رسائل channel كإنها تركمتت أو سبسكرايب صارت هذه جنبها الكنا فرتت أي كوسو جاران وررك عن أفري لا تنك الساعة اللي كان سوقلنا وتكون ما سنت هاي كبيرتان channel كنا وكل تمانك أقصى لو هذا كوني سجالي تمانك قد بدأ وقود كران ورك إننا وحى كمدا وحندين هنا حقوق كسب محاو كسو كرني قرح قبل كبنادر هي شخصيات جار أو أهرين تاسي هالس أطاي إذا ما ذكين تبضه هو جار الشعب سارين كده بسارين قبل كاسي قد قدور الشين كمعارض كتشوب اللان أو صوص صاريها براع دور شو حل بان ما الثلاث أو سجالي سؤالات كأني قرح اللي قدر إنجنير يريسو داود يا أنت سنة وحي هاي قد بدأ وقود كران وركنا waxaa xasuusiniga inta aan warka faafahintiis u gudbin in aadan hilmaamin muuqaalkan inaad like saartid share-na u dhahdid asxaabtaada haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan qaraxii xurunta gobolka Banaadir oo sababi doona arrin halis ku ah dad gaar ah tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii xanuunka badnaa ee ka dhacay aqalka dawladda hoose ee gobolka Banaadir ayaa waxa isa soo daraya dadaalo lagu adkeynayo amniga xurumaha dawladda iyo guud ahaan xafiisyada kale ee ciidamada iyo goobaha ganacsiga dadka baahiyaha gaarka qaba ee naafada ah ayaa weligood aad loo qiimeeyaa Soomaaliya waxaana faraya Quraanka Ilaahay iyo dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya balse wixii ka dambeeyay qarax xurunta gobolka Banaadir waxa muuqata inay wajahayaan xaalado adag xafiisyada dawladda iyo dhammaan xafiisyada kale ee ciidamada iyo hay'adaha sida gaarka loo leeyahay ayaa bilaabay in dadka naafada ah ku daraan shacabka sida gaarka la isaga ilaaliyo oo aysan markii hore ku jirin in ila gaar ah lagu eego dadka naafada ah waxa sabab u ah al-shabaab oo soo xiriyay dhammaan albaabada naxariista maadaama ay qof dumar ah oo aragga naafa ah ay ku soo xireen waxyaabaha qarxa kadibna ay ku laayeen mas'uuliyiin badan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo ayaa shalay garoonka kubadda cagta Engineer Yarisow ka sheegay in al-shabaab ay soo xireen albaabada naxariista isla markaana ay u baahan yihiin in la iska ilaaliyo Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir ahaana duqi Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yarisow ayaa u dhintay weerar ay fulisay gabar naafa ah oo shaqaaleysiiyayna fasax markii ay ka codsatay in lacag dhan $10,000 wararka qaarna ay sheegayaan inuu fasaxay in aan la baarin kadib markii ay dhibaato badan ka martay qalabka baarista al-shabaab ma laha naxariis iyo diin dadnimo midna waxa sahaboon inaysan ummadda Soomaaliyeed faqooqin isla markaana la bedelin habdhaqankii wanaagsanaa ee Soomaalidu ka dhexlaayeen wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa ku waramaya in maanta ciidamada Kenya gaar ahaan kuwa loo yaqaan argagixisada dirarku ee dalkaasi ay gubeen ilaa iyo 2 gaadiid oo ay lahaayeen dad Soomaaliyeed ciidamada ayaa la sheegay in gawaaridaasi oo ah kuwa xamuulka qaada ay dab ku qabadsiiyeen agagaarka deegaanka Libooyo oo dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya macadda ilaa iyo hada sababta rasmiga ah ay ciidamada u gubeen gaadiidkaasi inta badan ciidamada Kenya ayaa dhibaatooyin ka geysta deegaanada dhaca xadka Soomaaliya marka ay halkaasi ka fulinayeen hawlgallada ka dhanka ah al-shabaab sidoo kalena waxay marar badan falal burburin ah kula dhaqaaqeen xurumo isgaarsiineed oo ku yaala gobolka Gado ee Jubbooyinka ee koonfurta dalka Soomaaliya arrintan ayay dad badan u arkaan inay Kenya uga argudayso weerarada al-shabaab la beegsato xurumaha ganacsiga iyo goobaha ay dadku isugu yimaadaan ee dalkaasi doorashada Jubbaland ayaa nagu soo foolay guddiga doorashooyinka Jubbaland ay ku dhawaaqeen musharaxiinta ka soo horjeestay guddiga doorashooyinka Jubbaland oo magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe ayaa soo saaray nidaamka ay doonayaan inay u dhacdo doorashada maamulka Jubbaland guddigan oo ah kii labaad ee loo xilsaaray ka shaqeynta habka ay u dhacaysay doorashada Jubbaland si wada jirana ay ugu dhawaaqeen inta badan musharaxiinta u taagan hoggaanka ugu sareeya Jubbaland ayaa maanta soo saaray hanaanka loo mariyo doorashada maamulkaasi afayeen oo hadlay guddigaasi ayaa sheegay inay doonayaan in loo wada sinaado ka qayb qaadashada doorashada si loo dhowro kalsoonida dadweynaha iyadoo la tixgelinayo duruufaha amni dhaqaale iyo siyaasadeed ee ka jirta deegaanada Jubbaland ayuu sheegay guddiga cusub inaysan doorashada qof iyo cod ka dhici karin deegaanada maamulka Jubbaland guddiga ayaa sheegay in doorashada dhici doonto ay garwadeen ka noqonayaan odayaasha dhaqanka iyadoo loo madax bannaanay inay soo xushaan xildhibaanka ay u arkaan inuu ku matali karo baarlamaanka cusub ee lagu soo doonanayo deegaanada maamulka Jubbaland xildhibaan Mahad Salaad ayaa aad u dhaliilay warbixinta natiijada baaritaanka ee dawladda Soomaaliya ka soo saadhay qaraxii dhawaan ka dhacay xurunta gobolka Banaadir isagoo soo bandhigay 9 su'aalood oo aan wali laga jawaabin dhiigga Engineer Yarisow iyo saaxiibadiisa amaana ayuu ku yahay qof kasta oo mas'uul dawladeed ah wasaaradda amniga shalay waxay soo saartay warbixin aan wax nuur ah lahayn kana jawaabeen su'aalo aad u badan oo muhiim ah kow qofka meesha isku qarxiyay oo aan la shaacin magaciisa shaqada uu hayay sida ugu soo gudbay goobaha baarista isagoo sita walxaha qarxa ee sidaas u weyn iyo sida uu ku soo galay goobta shirarka labo
qofka warbixinta sheegtay inuu isqarxiyay sidee uga mid noqday madaxda gobolka muddada uu ka shaqeynaya habka uu shaqada ku soo galay cidda shaqaaleysiisay iyo habraaca loo maray shaqaaleysiintiisa. 3 yaa mas'uul ka ah baarista albaabada maxaa tallaabo ah oo laga qaaday saraakiishii gobol fadkaasi amni sameeyay imise qof ayaana loo xiray dhacdada naxdinta leh. 4 maxaa loo damiyay kaamirada ku xirnayd howlka shirarka ee qaraxu ka dhacay kahor inta uusan qaraxu dhicin. 5 saraakiishii mid goobta qaraxu ka dhacay maxay ula bixeen xog kaydiyaalkii kaamirooyinka ku xirnaa xarunta gobolka Banaadir iyadoo ay joogto hay'adii ku shaqada lahayd ee dami baaristu. 6 saraakiishii ku fashilmay ilaalinta amniga xarunta gobolka Banaadir sidee loogu aaminay inay qayb ka sii ahaadaan guddiga baaritaanada sameynayay. 7 ma dhici kartaa inay jiraan shaqaale ama madax kale oo iyaguna ka tirsan argagixisada oo weli ka shaqeeya xarunta gobolka Banaadir diyaarna u ah fulinta falal kuwan oo kale ah ama ka sii falxun. 8 haddii xarunta gobolka Banaadir ee amnigoodu aad ku adkaa sidan loo beegsaday ma dhici kartaa in xarumaha kale ee dowladda in iyaguna ay dayacayeen sida madaxtooyada golaha wasiirada golayaasha baarlamaanka iyo garoonka diyaaradaha. 9 haddii warbixintan aanay dhammaystirnayn 2 toddobaad kadib goorma ayay soo dhammaystirmaysaa. dhiigga injineer Yariisow iyo saaxiibadiisa waa ammaano ayuu ku yahay qof kasta oo mas'uul dowladeed ah. sidaas daraadeed waa in la sameeyaa guddi madax bannaan oo khibrad iyo aqoon lagu soo xilay baaritaano tifatiranna soo sameeyay si lagu gungaaro xaqiiqada dhabta ah ee masiibadii ka dhacday xarunta gobolka Banaadir ayuu yiri Mahad Salaad. daawadayaal waad ku mahadsantihiin sida sharafta leh aad u soo daawateen warkeena dhammaantiis inta aan warkaan mid ka xiiso badan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa annaga iyo bahda wadaagsan oo isku duuban sidaas iyo nabadgelyo.